waxaa socda dadaal xooggan oo nidaamka federaalismka looga hirgelinayo gobolada dhexe ee Soomaaliya iyadoo gobolada mudug ee galguduud ee bartamaha Soomaaliya loo sameynayo maamul ay ku midaysan yihiin bulshada gobolada dhexe. Shir dib u heshiisiineed ayaa ka socda magaalada Dhuusamareeb oo u dhaxeeya beelaha dega gobolada dhexe si la mid ah magaalada Cadaad oo xarun u ah maamulka Ximani Xeeb ayaa u diyaar garoobaysa martigelinta shirka maamul u sameynta gobolada dhexe oo ka dambeyn doona kan dib u heshiisiinta haatan ka socda magaalada Dhuusamareeb. tan iyo markii arrimahan maamul u sameynta gobolada dhexe ay soo shacbixeen deegaanada labada gobol waxaa si isdaba jooga u soo gaaraya mas'uuliyiinta aqoon-yahanada waxgaradka iyo qurbo-joogta ka soo jeeda deegaanka kuwa oo qanacsanaan ka muujinaya helista maamul loo dhan yahay. Maryan Cali Abtidoon waa xogayaha dhinaca maaliyadda ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxa ay ka soo jeedaa deegaanada Ximani Xeeb waana markii ugu horeysay oo ay soo gaarto deegaanka waxaana rajo wanaagsan ka muujinaysaa in lagu guuleysto dhismaha maamulka gobolada dhexe. hadda waa ujeedaa meesha aan fadhino waa meeshii loogu talagalay martidii iyo dadkii soo dhaweeytooda meesha ay seexadahayeen waxaan isleeyahay maanta gobolada dhexe ma u malaynayo in meel saan oo kale macnaha hadda waqti xaadirka la joogo in ay maaragtay ku taalo waan ku faraxsanahay waxaan ugu baaqaynaa dadka u dhashay gobolada dhexe in ay ku soo dhawaadaan dhawaan madaxweynaha Soomaaliya oo safar ku tagay magaalada Dhuusamareeb ayaa si rasmi ah u shaaciyay in magaalada Cadaad ay tahay halka uu ka dhacayo shirka maamulka loogu sameynayo labada gobol ee Mudug iyo Galguduud waxaana bulshada ku dhaqan magaalada Cadaad ay muujinayaan u diyaar garow ku aadan martigelinta shirkaasi. waxaan si weyn u sugeynay ayaan runtii ku tilmaami karaa shirkaasi dib u dhac badan ayaan ku yimid bulshada gobolada dhexana si weyn ay dabcan u sugayeen shirkaasi maamul sameynta gobolada dhexe marka aniga fikradeyda ka cabirana waa shir kulliga imaam loo sameeyo gobolada dhexe waxaan isleeyahay isbedel weyn ay keeni kartaa gobolada dhexe si weyn ayaan looga dareemayaa sansaantiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa gobolada dhexe. waxyaabaha ugu badan oo dadku isweydiinayaan ayaa ah helista amni ku filan marka lagu guda jiro arrimaha maamul u sameynta gobolada dhexe. Qadar Faarax Biciid waa siyaasi hore xilka wasiirka ammaanka uga soo qabtay maamulka Ximani Xeeb waxaana uu kalsooni badan ka muujinaya helista amni sareeya marka ay iskaashanayaan ciidamada Ximani Xeeb kuwa AMISOM iyo shacabka deegaanka. Ximani Xeeb ciidankeeda iyo nidaamkeeda inuu ku filnaa ammaanka sugidda shirka hadda la qabanayo waxaa markii intiba hadda kaga sii ziyaadsan oo khayr sii batay u noqon doono ciidamada AMISOM ka socda weli Djiboutiyaanka rajaynaya inay yimaadaan inay wax badan sii kordhin doonto laakiin waa ku kalsoonahay ciidamada Ximani Xeeb ee maamulka muddadaas 5 sano 6 sano ku sii dhawaad ka shaqeynayay u joogay inay maaragtay wax badan ay qaban kareen waxa marka Ilaahay mahadiisa ciidamada AMISOM oo professional inay imaanayaan meesha waana isleeyahay soo dhaweynteeda iyo maaragtay amniguna wax dadka looga baahan yahay waa maahan ciidan kaligiis wax ma qabto marka meeshaan waxaan rabaa inaan message uga diro dadka deegaanku inay ciidanku haddaysan la shaqeynin waxba gaar ah aysan sameyn kareen waa rajaynayay insha Allah dadku inay la shaqeyn doonaan ciidankaas martida noo ah midkaas asaga loogu talagalay amnigaas inay sugaan macna. si kastaba ha ahaatee waxaa la isweydiinayaa haddii la mideeyo labada gobol ee Mudug iyo Galguduud bulshada labada gobolna ay helaan maamul ay u dhan yihiin waxa ay u siyaadin karto arrintaasi. soo siyaadaan dadka isbedel badan u soo siyaadaan dad wada deegaanka wada dhashay federaalkana maaragtay wuxuu soo siyaadiyaa waxay tahay in dadkaada iyo dantaada qabso wax yiraahdo timid marka wuxuu noo soo siyaadinahay aad ugu faraxsanahay haddii gobolada dhaxaba maanta maamul sameentooda ay noo bilaabatay hawsheedna ay noo socoto isbedel aad iyo aad weyn noo soo. Cabdi Fataax Axmed Cali Shiino Somali Channel Cadaad.